السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قالقا وايدين سلامي دمان ميل والبو ادوني دكا جوجتين إلهي ها ايدين حفظ الله ايدين بركيو انت حنون سنة الله عافيو انت عافيماتك قبتنا إلهي ها اسيادي ارساقدن إلهي ها نواسعيو سومالية انيقا مانتا رقا السومالية دان دعوك احي ناكتان او جيدين والسودانية كل واتقانين مالمهانو لن نمك سومالي دا ودودين gabadha Suudaaniyada oo heesto oo caanka ah oo inta ka baxday 2 milyan oo nin oo Soomaali ah ku xiran marka su'aala idin weydiinaahay dumarka Soomaaliyeed maxay dheer tahay way heestaa waa hadalnaaye mase waxayna dheer tahay naagto dambeedkeeda dabaaladayo duqbaha ahaatay kama deerinaayo kulligiin inta milyan oo gabadhan ku xiran damac ma idinka wada haay gabdhaheena quruxda leh sharafta leh wanaaga badan maanta markay meel soo fariistaan ay rabaan inay social media ileen gabdhaha Soomaaliyeed oo social media ku jira ma yaree markay rabaan inay horumar ka sameeyaan afar xabo maxaa la maanta ay ka dalbatay inay caawiyaan waxay isleeyihiin la tasawi facal qeyr ma yijiki shar naagtan iyo afareeda iyo garabsiinteeda maxaa ku galiyay laakiin naagta haday ajnabi tahay kabaha ka daba qaadayna adi ani waxaan rabtay dheh waa maseersantahay dheh maseera ka haay naagtan dheh wallahi kala ma jeclinoon kaalda noon fareesko waxa isaga keendarsan macnawiyaadka iyo maseerka waa isaga keendarsan yihiin macnaha macnawiyaadka ma taqaana qofka walaalka ee waa la dhiirigeliyaa waa la garab istaagaa niyada loo dhisaa waana la taageeraa wax walba oo la yimaadane haday wanaag yihiin waa loo horkacaa وانا لو دير غليا لكن انغا maxaan naqaana Soomaali iyada xaasid isku ah waxaan naqaana midkii horumaray maarey naftiisa noloshiisa horumariyay caadaas maraya bulshada ka dhex muuqdo maryahan qabsanayna maxaa nooga horumartay aan kula murmeynaa iskaba dhaaf mid u baahan caawinaade kii horumaray xataa waa celinayna naar waab galay titiin booyala leeyahay marka أنا وحنا يا بناهي والله سوشيال ميديا دنبا waxaa qabsaday gabadhana qabsatay nin walba meel taagan gabadhana wareejina Soomaaliyeed aniga horta maanta naagtan inaan ka yarahay maahan wallahi inaan ka weyneen maantana ani maseer ida aan ka maseeray uma soo qaadanin laakiin aqliyaradiina aan la yaabanahay وأوجهي أنا وحاسليه ما أنت هو دوا وعلى توا كوفتي ناكتان إيسن جاري كريم ورقف أن جاري كريم ملها قفل بنفتديس إنه نفسديس إنه كوكل صونا هذا واحد أنا قهرت أمان أفكار كاجا مهر رسابة أنا إسعجبي أنا واو أنا ما شاء الله أنا كلا أرجع أهي سببته أنا قدر إسكو كل صونين أنا إس أمانين قفا أمان كسوجا أمامل أو قفا يا ملها لكن دوكني مدينة لا يابنها نيكي ميل تاجنبو gabadhaanu amaan u soo jeedina gabdhaha Soomaaliyeedna oo ma sha Allah tabaaraka arrahmaan macnaha haday ka dhex muuqdaan bulshada haday rabaan nafsadooda inay horumariyaan marka aad gabdhaha Soomaaliyeed soo qaadanaysiin idinka ragga Soomaaliyeed sheega marka soo qaadanaysiin waa mid la ceebeeyay mid la soo qaawiye mid camera idoo oo ogeen laga duubay kuwaas baraha bulshada waa keenaysiin laakiin tii qurux badan tii is horumarisay tii wanaaga faafinayso tii macnaha markaas iyada waxay la imaatay ama afkaarteeda ama hal abuur la imaato kulli waa yasaysiin waxaan jirin aad soo qaadaysiin laakiin meel yar haday ka qaawan tahay oo maanta baraha bulshada la soo dhigo inta nin oo baraha bulshada ku jirto oo Soomaali ah oo naagtan maxaa lahaa ka daba naageenayo oo nacamleeyaashu ah kulli inta soo qaadatiin aad gabdhihiina ceebeynaysiin gabdhihiina ina ceebaysiin ku qanacsantiin laakiin kuma qanacsanidin ina kor u qaadin oo banaanka soo dhigtiin hal nin oo ajnabi ah maanta haduu hees soo kor saaro 20 milyan loo fu saarayso laakiin maanta ani hada meel soo fariisto oo dhaho Soomaaliyeed waxa idin kaga baahanahay inay caawisiin yaa hadloo yaa leeyahay dameer iyo dockeerba daanka lagu dhuftay maxay ahayd naagta
aan kugula hadlayo maa ku dhibaayo jinsiyadda aan kula ahay maa ku dhibayso soomaalinimada aniga aan sheeganayo maa ku dhibayso ilaa aniga soomaaliya ahay walaalkay maanta waxaa la dhahay naartaba ninka waa kuugu jiro walaalkay maanta hadduusan i garab qabanin uusan i garab istaagin markaan arkaayo asagoo naag ajnabi garab taagan ciila i qabanaayo waa xanaaqa waa maseera ani horta naagta haddaa ka maseeraayo 10 yardiyo maraa isku soo duubi lahay aan meel la soo istaagi lahay microphone waa soo qaada lahay iidan ku dayan lahay ani maseer ma aha wax iga hadashiinaayo laakiin garab la'aan aan haysa gabdhaha Soomaaliyeed garab ma haystaan laakiin ajaanibka Soomaaliyeed garab ka helaan gabadha walaalkeed qolka ugu soo galay asagoon soo garaacin markaas intuu garabkeeda fariistay wuxuu dhahay adduunka yaa ugu quwad weyn aniga ee dhahday waa ugu celiyay wuxuu dhahay adduunka yaa ugu quwad weyn aniga ee dhahday waa xanaaqa uu istaagay albaabka markuu istaagay oo wuxuu dhahay adduunka yaa ugu quwad weyn markaasay tiri adiga sababoo dhahay markaa garabkayga taagan tahay adduunka anaa ugu quwad weynay tiri sababtoo ay walaalkayga garabkayga laakiin markaa iga fogaatid garabkayga waa bannaan yahay Soomaali haddaan nahayna wiilasheena Soomaaliyeed ama dhalinyaro ha ahaadaan ama odayaal waaweyn oo aniga ila eg ha ahaadaan ayaga garab uga baahanahay gabdhahan boqolaalka dhaafay oo social media ku jiraan oo sharafta laho quruxda badan oo hal abuurka laho horumarinta leh oo wax walba laga faa'iidayo maanta garab kama haystaan Soomaali ajnabina garab kama haystaan laakiin gabdhahaas ajnabiga iyo nimanka ajnabiga Soomaaliya garab ka haystaan Soomaali shisheey kalkaal waay wallahi shisheey kalkaalaatihiin laakiin been idiima sheegay naag ajnabiisa ugu naageynaysiin gabdhihiina Soomaaliyeed ugu naageysiin mana u garab istaagtiin mana idinka istaahilno waan aniga barnaamijkayga qayla dhaan waaye inaa ajnabigana u daba dhaqdiin annagana aad dhulka naga qaadi weysiin wallahi waa ka soo horjeedaa qalad weyn aan u arkaa adi saa rabta ii qaado fikraddaa rabtana iga aamin ani maba kala jecli horaan kuugu sheegay maanta naag ajnabi oo aan igu jinsiyad ahayn 2 milyan oo Soomaaliya ku xiran anigana 100 qof oo Soomaali iguma xirna ilaahay xaqiis miya waaba idin sheegay saarabtiin u qaata maseera ka keen xataa dhaha laakiin waxa maseerka iyo kuleelka dhariga kalka maxaa ka keenay kuleelka ka keenay warni weyn oo caan oo la yaqaano iyo midaan la aqoonin oo waxay iida soo qoraysa iyo waxay ku hadlaysa xataa aan aqoonin kulli waxay soo wada qaateen naagta sabab maxaa halayna anaga waa idin la dhalanay waa idin dhalnay waana idin dhaxnay maxaa Soomaalida wiilashooda aan ka hadlaynay ragga Soomaaliyeed waliba 4 jeeblayaasha duqooshinka oo anaka kaleete maxaan ka hadlaynay kulligood ma yikay qabaan naag dambeedkeeda dadabaalanay ay daba soconayaan wax ma idin sheegaa Soomaaliyeed raggiina Soomaaliyeedo saan iska bedela saan talama noqonayso dhalinyaro hadduu yahay iyo hadduu ciro leeyahay oo waayeel yahay hadduu meel ka muuqdo oo magac yariis yeesho waa u soo garba saaranaysiin waa lu goynaysiin cagta u saaraysiin hoosa u celinaysiin ajnabina hadduu intuu 3 labiyo ku soo shubto galaas soo kor saarto waa ka wada gadanaysiin si aa u horumarisiin caalamkane dhalinyarada markay wax yariis oo faa'iido ay la yimaadaan caalamka dhan waa u istaagaa ama marka wadankaas ay markaas u dhasheen waa u wada istaagaa waa la garab siinaa waxaa la leeyahay fikradu la yimid ma sha Allah horay u soco keep going anaka keep going geeyna waxa waaye inaan hoos isu celino marka aniga naagtaan igama nasabsana igama qurux badna waxay dheertaa iska yar way haystaa waana hadlaa aniga ma fahanteen marka aniga xanaaqaas ay hay ragga Soomaaliyeed anigu xanaaqsanahay